فلسطين ونكسونها وحول بوك دعاية لكن Soomaalida marnaba kamaysan aamusin dhacdooyinkii ka taagan Falastiin hadaba sida aad aragteen waxa ka dhacay Falastiin iyo sida ummadda muslimiinta ay ugu jawaabeen hadaba anigoo muwaadin Soomaaliyeed ah waxaan rabaa inaan halkan ku cabiro qadiyada ka taagan maanta Falastiin waxaan rabaa inaan ku cabiro gabay aan ugu talagalay dhibka haysto walaalaheen reer Falastiin ee daawashada Falastiin dhibka gaaray dhacdo weeyaan xanuun leh hadaan haysta dhigaal hubka dhiiga daadiyo yuhuudaas ma dhacdeen dhulkay maanta hantiyeen dhagaxaan ma rideen dhalaankii Falastiin ma dhoorteen cadowgoodu intuu dooniga gooyay qudus dhiilo colaada isku dhiidhii ma gasheen carab dhiigaridoodu kama dhiidhinayaan Falastiino isdhiibto Siiriyo dhulan weyso Masar la buux dhaafso Lubnaan oo dhul yuhuuda intay taas dhacayso miyaan dhawranaynaa Sacuudigii ma dhaga beelay ma dhowhana qadartii Cumaan yaa dhaga saaray Imaaraad ma isdhiibto anigoo wax urun bay maansadu u dhalatay Arab way dhurguntay cajabay dhigeyso Turkiyo kuma dhaafto maanta dheelada taagan cid kale oo ku dhacayso kugu dhaantalawaa gaala gaal dhabar taagan inuu dhowra Mareykan cid ku dhiiran karto kugu dhaantalawaa walaalka dhimanayo kaalayo dhig budiisa way dhaawacmayaane kaalayo dhiig u jooji dooni way ka go'eene kaalayo dheefto qaybi dhagax bay ridayaane intaal kaalayo u dhiib dhulkooday dhacayaane kaalayo dhabar joogso Iiraan ay ku dhaliilay adaa sadiifa ka roono kuwa dooni qaatay dhargayo iska seexday kaalay dhulka ka xoree Gaza way dhimatay kaalay Qudus u dhiiro kaalayo dhiig u daadi dhulka ciidamage kaalayo lay dhawrweynta dhimasha nolol dhaanto markay dhiida gaarto kaalay dhiig awrne dhagarta reer galbeedka ma dhawey bal u fiirso Liibiya dhaqdhaqaaqday Qadaafi dooniga gooy Ciraaq baa dhibka diiday saadaan dhagta dhiiga Yemen baa ka dhiididay maalin dhaxdoodii dab bay ka daaray Syria u dhawaatay Israa'iil u dhawaaqday gantaalay la dhicay walow aysan dhamaan geesiyaal ma dhaqno dhadig baa wali joogo oo dhuuqa saliid sugda wali muusan dhama barnaamijka waad ku maasan tahay sida xushmad iyo qadarinta mudan ah oo daawanaysid barteena YouTube-ka ee Man Official sidoo kale waxa dareenkiisa iyo shucuubtiisa ka hadli doono sida aad aragtaan macallin Jawte oo aad looga yaqaan degmada Luuq ee gobolka Gedo macallin Jawte hore u sii gudagal barnaamijka waxaan ka hadlaynaa maanta waa qadiyada ka taagan Falastiin sida waragta Bismillahir Rahmanir Rahiim waxaan salaamayaa dawladda islaamka adduunka annagoo degmo Luuq ganaane xiroolo caama dhalinyaro culimaadudiin anoo xambaarsan waxaan nacalada Ilaahay ku ridaynaa dawladda yuhuudda ee la dagaalamaysa ummadda Falastiin oo islaamka boqolkiiba boqol ah ee maantay meeluhu nebiga ka dhoofay ama sunnadiisa ka mid ahayd ay ku dagaalamayaan islaamka ay baabiinayaan waxaan leenahay dawladda yuhuudda iyo gaalada iyo kirishtaanka ha dhaceeno muslimka ha guulaysto anoo ah baro ku nool degmada Luuq ganaane inta muuqaalkayga taqaano waan salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام بالله ولكن جوته وأنا كم سنتهاي سيد برنامج كأنه لقب قادتي داوديال أنت برنامج كن كيس كلام كل مدونه سداسي نبت قليو وأنا عبد الرحمن السيما علين وإذن له سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فلنقم كلنا للدواء والقلم كلنا عطف على من يصارع السقم فلنواصل المسيرة